baashe maxamed faarax gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland horena uu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta ku guuleystay hanashada xilka gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland kadib markii Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani uu iska casilay xilka gudoonka baarlamaanka Soomaaliland. Shacabka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub isla markaana sheegay inay taageersan yihiin baashe maxamed faarax. guusha uu ku guuleystay gudoomiyaha golaha baarlamaanka baashe maxamed faarax gudoomiye khayr iyo barakaan ku rajaynaynaa xilka aad hayso horena aad u haysay gudoomiye ku-xigeenka golaha baarlamaanka maantana aad noqotay gudoomiyaha baarlamaanka aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa doorashada la doortay gudoomiyaha baarlamaanka baashe maxamed cabdi aad baan u soo dhaweynaynaa waa hambalyeynaa waa taageersanahay boqolkiiba 90 maanu si heer sare oo la shaqeynayno waxaan halkan ugu hambalyeeynaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka baashe maxamed faarax oo ku guuleystay tartankii maanta oo la galay maxamed xayanle waxaan leeyahay xilka culus oo kula garab galo waxaan halkan ugu hambalyeeynaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay waa guul soo hoyatay dhammaan ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda ku dhaqan gobolada Sool iyo gobolada SSC iyo wadaniga gudoomiyaha cusub horena uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka baashe maxamed faarax gudoomiye markii horeysay waa malyan ku soo direynaa haddaan nahay mujtamaca ku nool gobolka Sool dhammaanteedba waan ku habbooneed maanta aad iyo aad bad kaalintaas haddaan reer Sool nahay iyo haddii baydmayo Sool iyo Sanaag iyo Cayn gobolada bariga aad baan ku soo dhaweynaynaa aad baan raal uga nahay wax qabadkaaga horena waa ogeyn haddaan nahay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood waxaan aad u soo dhaweynaa gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane baashe maxamed faarax oo loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland waxaan qaliyeenaa maanta gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka baashe maxamed cabdi waa nin weyn oo soo shaqeeyay afka dhalinyarada gobolka Sool ku hadlaya waxaan aad ugu hambalyeeynaa gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee saaka la doortay Alaseydii oo halka cod ku guuleystay baashe maxamed cabdi waxaan leenahay guul gobonimo ku leenahay wada shaqeyn wanaagsan ma ku rajaynaa insha Allah. Xamsi Xaaji Maxamuud Raadiye RTN TV Laascaanood.